geedi socodka iyo hayaanka ay muhaajiriintu ay ugu jiraan in ay marun gaadhaan qaaradda Yurub waa mid aan wali istaagin balse ay adag tahay in aynu rumaysano dhibta ay maraan dadkaasi muhaajiriinta ahi muddo 7 maalmood ah ayay muhaajiriintu jidka saxaraha ah ee aan cid iyo cirsi toona lahayn ay mushaaxayaan waana saxaraha ugu dheer galbeedka qaaradda Afrika waxaa jira kooxo u hubaysan nidaam qabiil ah oo qafaasha dadka muhaajiriinta ah iyaga oo ay dantoodu tahay si ay lacag ay uga helaan dadkaasi halkani waa xero dadka muhaajiriinta ah lagu ururiyo halkana waxaa lagu weydiinayaa qof kasta aqoonsigiisa iyo xoogaa cashuur ah waxaana ku jira xeradani caruur da'yar dhalinyaro iyo waayeel iyo dumar ninkani Samuel qoyskiisii oo dhan waxa ay sababsadeen gacanta Boko Haram kelidii ayaana ka soo hadhay qoyskiisii wuxuuna rabaa nolol fiican iyo mustaqbal laakiin se dib kasta oo la soo darista hadafkiisa oo kaliya ayaa ka weyn saxaraha dhexdiisa waxaa ka socota ganacsi dadka lagu kala iibsanayo qofkii $8,000 bixiya ayaa ka baxaya xeradan inkastoo ay barbar socoto kufsi dil dhac loo geysto qofkii la habsama lacagtaasi ninkan oo ka mid ah dableyda hubaysan ayaa ku jawaabaya waxa aan la yaabanahay dadkan maalin walba naftooda halista soo gelinaya bal ma iska joogaan dalkoodii annagana xaq baanu u leenahay inaan wax kasta ku samayno waayo dalkan annaga ayaa iska leh kumanaan qof ayaa xeradani habeen walba lagu soo xareeyaa badankooduna waxa ay ka yimaadeen geeska Afrika xaaladda guud ee xeradanina waa mid liidata waayo caafimaadku waa uu ku yar yahay cuntana hadalkeeda badaa inta badan waxa ay ku madadaaloodaan ciyaaraha kala duwan waayo ma haystaan shaqo rasmi ah Musa waxa uu ku warbixinayaa sababta halkani keentay waxana uu yiri dalkayga shaqo may jirin waxbarashada hadalkeedii 3 waqti ayaan dirqi ku heli jiray inaan faqirnimadan ka baxo ayaan wadadan halista leh aan u soo qaaday balse maroon ayaan Yurub gaari doonaa insha Allah socodkan iyo hayaankaniba maaha mid istaagaya ilaa ay Afrika ay ogaato danteeda iyo nimcada ay haysato